shirarkaas laba geesoodyada ah waxaa lagu xaliyey arrimo badan oo culus oo ugu darnaa inta aan la gaarin shirka weyn. dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas. hase yeeshee madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo is-afgarad oo halkaas aan arrimaheena ku xalino. tallaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda. Soomaaliya taas way ogolaatay, laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi. arrimaha ay Soomaaliya ka ashkatoonaysay waxay ahaayeen dhowr arrimood, qaarkoodna aan idinkala hadli karno, qaarkoodna aan ka gaabsan doono maadaama hawshaas ay weli socoto. tan ugu culus oo ugu muhiimsan uguna maaragtay degdegta badan waxay ahayd mid ku saabsan jabhadaha ama jabhadda lagu soo abaabulay dalka Kenya dhexdiisa sida aan anagu qabno oo borderka dhinaciisa kale xuduudda dhinaceeda kale ku abaabulan, taasoo IGAD ay go'aan ku gaartay in guddi xaqiiqa raadin ah loo saaro. guddigaasna uu arrinkaas soo baaro. arrimaha kaleeto oo ay Soomaaliya tabanayso waa wax lagu xallin karo midba siday maaragtay u kala muhiimad weyn yihiin oo lagu xallin doono diplomatic channels ama qaab diblomaasiyadeed u socon doono. laakiin arrinkaas ku saabsan xuduudda iyo xiisadda ka taagan taas waxay ahayd midaan rabnay in marka hore laga wada hadlo inta aanan loo gudbin wax kale. shirka wuxuu dhammaaday isla shalay. sida aan wada ognahayna waad hesheen warmurtiyeedkii ka soo baxay ama communique-gii ka soo baxay shirkaas maanta.